الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كنتن يسديدات كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. نعيم الأبرار. هل كان شيخ حكوشي يا حكمه عوان لوغد الأبرار وددك وناكسن نعمة أي كجيران. وعور ابن القيم الأبرار في النعيم تدك أبرارته وناكسن نعمة كده جيران وإن اشتد بهم العيش نلش بها كأتكاته وضاقت عليهم الدنيا أدونك بعريري حكون نقضه والفجار ددك حنحن في جحيمي كجيران وإن اتسعت عليهم الدنيا أدونك واسع نقضه sida muuqata waasaca u ahaadee laakiin jaxiimay ku jiraan. wuxuu ku sheegay ibnulqayim macluumada kitaabkiisii addaa wadawa. haddaba qofka wanaagsani nicmuu ku jiraa, nolosha adduunkuba ha ku adkaato, dhibaata ha haysato, rafaad ha haysto, gaaja ha haysato, cudurraha ku dhacaan, mashaakil ha la soo darsaan, laakiin nicmo ayuu ku dhex jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa jira haddii uu dhibaato ku dhacdo dembi dhaaf unbaa u socda, haddii uu wanaag haystana wanaag buuba haystaa. laakiin kan faajirka oo ama gaalkii iyo munaafiqii iyo fujuurkii iyo alfisqigii oo dhan noloshoodu waa jaxiimo. iyagu adduunkuwa waasaca u ahaado, ha tunto, wuxuu raba ha israafo, wuxuu raba ha sameeyo, laakiin jaxiimo ayuu ku jira. adduunkana kuma haysto runtii lada iyo wanaag kuma haystaan, ee walwal ayaa haysta. maxaa jira nolol danki abay ku wada jiraan oo riba iyo bakti bay ku wada nool yihiin. one day hal maalin ma goyn karaan shaqada. gabdhaha dadkaas xitaa aan muslimiinta ahayn markay umulaan ama ay dhalaan oo kale fasax xitaa ma heli karaan. maxaa jira mortgage waxa la yidhahda waxaa ku taagan riba ku taagan oo laga sugayaa. hal bil hadday bixin waayaan banaanka dadka loo soo tuurayaa, gaadhigiisa waa la jiidanayaa, gurigiisa waa la qaadanayaa, qalabka xitaa guriga u dhex yaala iyo goosha uu ku jiifo waa ribo, waa la qaadanayaa. dad baa iska leh, waxaa laga bixiyaa waxaasoo dhan. wax taqsiir la yidhahda kiskis baa waxay u dhixin jireen. marka waa nolol danki ah, cadaabkii kalena waa u dheeryahay. rabbi wuxuu leeyahy ina alabraara lafii naciimin wa ina alfujaara lafii jaxiimin. alabraar dadka waa wanaagsan, baariyada a wanaagsan waa lafii naciim bay ku jiraan, nicmay ku dhex jiraan. wa ina alfujaara dadka xunxuna lafii jaxiimin ayay ku jiraan iyaguna. haddaba nicmadaas maqsuur kuma aha calaa naciimi alaakhira, kuma gaabno oo nicmadii aakhira oo keliya laga warrami maayo. jaxiimadan la sheegina ma aha jaxiimadii naarta oo keliya ma aha, bal saddexda daarood ee la marayaba kuwana nicmay ku jiraan, kuwana naar bay ku jiraan. saddexda daarood waa kuwe? daaru dunya waa daarta adduunka een ku jirnoon joogno, iyo daarta labaad oo iyaduna ah daarul barzakh, xayaatada markii la geeriyoodo ee qabriga dad qofku la geliyo ilaa qiyaamada layska soo saari, inta xayaatul barzakh baa la yidhaahdaa. talaabso dambaysana waa daarul qaraar, waa sugnaanta gurigeeda, waa alaakhira. marka saddexda, tii adduunka iyo tii qabriga iyo tii u dambeysay, saddexdaba kana nicmu ku jiraa. fa haa-ulaa'i fii naciim, nicmay ku dhex jiraan. kan itminaan iyo deganaan buu adduunka ku nool yahay, iyo ilaahay subxaana watacaala iimaankiisi iyo raaxo iskaga jiraa. hadduu rabo rafaad kaleba ha jiro. kanna wuxuu ku jiraa isaguna dhibaatadaasu ku jiraa. marka la galo xayaatul barzakh oo qabriga la geeyo, qofkii fiicnaa ilaahay qabriga wuu u waasicinayaa. madal basar, inta ishu ay ku daasho baa alla u waasicinayaa. anwaar iyo nuur baa loogu xidhayaa. meel wanaagsan buu ku jiraa. kana danki buu ku jirayaa, iyo cidhiidhi iyo mugdi iyo masas iyo balaayo ayuu isna ku dhex jirayaa. wa haa-ulaa'i fii jaxiimin, kuwaasna jaxiimay ku jiraan. wahal naciimaba miyaa jirta buuri ibnuqayim, ma nicmaaba jirta ilaa naciimu lqalbi, qalbiga nicmadiisa moogiye. ma cadaab baa jira buuri ilaa cadaabu lqalbi. marka meesha cadaabka uu ka socdo iyo nicmadu laga kala helaayo waa qalbiga.
qalbigan qofka ahlu iimaanka ilaahay baa u dejinaya, kana qalbigiisu ma degana. facadaabu dunya, adduunka cadaabkiisu waa inuu qofku ka jeedsado rabbi subxaanahu watacaala iyo daartii aakhira uu ka jeedsado. cadaabka barzakhuna waa inuu ku nool yahay nolol aan ka tegaynin, uu doonayo inuu laabto bilaa cawda, mana laabanayo. ilaahu yaa mar ii celiya buu leeyahy, aan wax soo samaystee. cadaabkii aakhirana wuu sugayaa, ciyaadan billaah. axadu sulaxaa, dadkii fiicfiinaa mid ka mid a baa wuxuu odhan jiray: low calima almuluuku wa abnaa'u lmuluuki maa naxnu fiihi lajaaladuuna calayhi bisuyuuf. hadday ogaan lahaayeen dadka boqorada ah iyo boqorada caruurtoodu nicmada aanu ku dhex jirno, waabay nugula dagaalami lahaayeen, nooma daayeen bay odhan jireen. laakiin war uma hayaan, kuwana nicmay ku jiraan, kuwana hadday mood inay nicmo ku jiraan. marka ilaahay baa subxaanahu watacaala waxaa la yidhahda wey, ninba dhan u badi. marka dhanka aakharo iyo wanaagga yaan laynooga badinin, iyo nicmada iyo deganaanta iimaanka qalbiga insha allahu tacaala. jazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum.